oo soo saaray waa dadkii shalay uga hiiliyey farmaajo haddaad ogtihiin haddii kale hadday qabiil ku jecel yihiin maanta 10 sano madaxweyne sii ahaan lahaa xasan sheekh maxamuud sanadkii 10aad baa u geli lahaa nimankii shalay kaga hiiliyey bay ahaayeen farmaajo oo soo saaray farmaajo waxay ahaayeen sheekh shariif cabdiraxmaan cabdishakuur raggaa bay ahaayeen raggii uga hiiliyey xasan sheekh maxamuud raggii ka hiiliyey ee farmaajo soo saaray ayay ahaayeen haddaad isleedihiin qabiil bay isku doorteen saaka waad istustay bini'aadanka adigaa isjeclaysiiye siyaasadda noocaa meesha ay kaaga fail ay kaga noqotay wey dadkiiba idinka isjeclay CBB wax maanta looga mahad celinayo oo la leeyahay waad ku mahadsanaydeen aad baad u mahadsantihiin waxaa ah in niman hawiye la yiraahdo oo kala firsanaa ay awooddoodii isu keeneen awooddoodii bay isu keeneen haw nacayb baa tusteen nacayb xun baa la tusay xitaa inaanan lagala gaban la yidhaahdo hawiyuhu dowlad ma rabo inaad tiraahdaan xitaa midka la wato lagu xushmeyn waayo midka la wato xitaa lagu xushmeyn waayo cali maxamed geedi hortiisa lagu caayo hawiya iyo hiraabka iyo muduluudka cali yara cali hortiisa lagu caayo muduluudka salaad cali jeer inta la dira la yiraahdo shir dhan beesha muduluud ay qabsanaysay oo imaamkii dhex fadhiyo oo guurtidii oo idin dhex fadhido in la yiraahdo orod ku soo dhaxay lacag lagu siiyo nacaybka in wadooyinkii lagu ceersado oo la yiraahdo yuhuud ma tihiin albaabka naga furayna yiraahdeen inaad heerka gaarsiisaan maxay dhashay maanta iyagoo mid ah oonan afar soo socoto iyo afar kale soo socoto iyo afar kale soo socoto aan laga qaadi doonin horta CBB taad ku mahadsantiin waa wax la idin kaga mahad celiyo reer ciidan hawiyaha la yiraahdana cid walba oo CBB ahayd waa inay cafis u fidiyaan maxaa yeelay la'aantood maba idnan midoobi lahayd la'aantood maba idnan midoobi lahayd xitaa saacad qaliilkii waxaad isku daydeen khayra iyo inaad isku dhufataan reer balkan nimanka la yiraahdo hiraab hawiyaha khayra inaad gaar inta kaga safataan aad kuwan kala ku jabisaan oo isku caydaan ayaad xitaa bilowdeen waanu isnaqaanaa laakiin idiin socon weyday marka runtaanu idiin sheegaynaa guys Puntland iyo Jubaland dee iyagana nacaybkaa la tusay taa dee reer gaar ay u taallaa iyaga qaab ay isu kala bixiyaan baa jira Jubaland iyo Puntland dad isla weeye markii reer ahaan Soomaalida la yiraahdo dad isla weeye iyagana nacayb gaar ayaa la tusay cidii tustayba marka guys waad ku mahadsantiin inaad hawiyo midayseen hadda midayseen hawiyo maanta midoobay oo wadooyinka aad ku ceyrceeriseen caruur inta laga laayay dhalinyarada laga laayay kabahooda lagu duugay siyaasad iyadoo loo marayo gabar inta la afduubay nolol iyo geeri aan lagu hayn hooyadii u ooyeysay la caayay la yiri xitaa xabad madaxa looga dhufto taa qarannimada loo burburin maayo la yiri rag la weeraray helicopter inta lagu weeraray la laayay al-shabaab weeye inta la yiri la laayay waxaasoo idin la sameeyay ay horta ku midoobeen maanta ciidamo qaran awood leh waxa ilaahay idin kaga keenaa idin sheegaya macal siyaasiyiintiin ciidamo qaran leh oo awood leh oo rajis garaysan oo liis garaysan oo awood leh oo la yaqaan haramacad dad ba u maleeyeen jiray haramacad inay nabadii nolol yihiin alla maanta ma dad waxaysta dad waxay u maleeyeen jiray haramacad jufa daarooda inay ya jufa 4.5 ka daaroodnimo ku joogta qayb ba u maleeyeen jirtay wallahi billah alpha group iyo nimanka la yiraahdo haramacad iyo maxay ahaayeen kuwii kale iyo wallahi taa ma kala aqaan ya dad ba u maleeyeen jiray inuu farmaajo leeyahay dad ba u maleeyeen jiray wallahi uu farmaajo leeyahay oo rabo ay u qabtaan habar gidirta ku weerar eelayda ku weerar cabdudoobaha ku weerar inuu farmaajo u haystay u maleeyeen sorry guys ya wallahi billahi aad baad u qaldanaydeen meel xun bay idin kala degtay wallahi
saaka harmacad waxaa taliyo waa xasan sheekh nimanku waxay diintan ka baxnay iyo waxay u leeyeen u gaaloobaya qaar ay u leeyeen dhilaa noqonaya wadada istaagaya waxa wax yar ma aha war matoorada qaar la isma saaro matoorada qaar la isma saaro waxa la isma sii raaciyo xasan sheekh maxamuud haddii waxa aan ka filanay haddaan ka waayo hay fogof baan leeyahay berri waan ka tagaya barada anigoo xor ahaan dhashay anigoo xor ahaan dhimanaya fogof baan leeyahay laakiin matoor isa saari maayo ah in filada uu leeyahay ninka la yiraahdo xasan sheekh maxamuud